مسؤولين كترسن maamulka galmudug oo isugu jiray wasiiro saraakiil ciidan iyo maamulka degmada Cadaado ayaa la kulmay ururka soo dhaweynta ee maamulka galmudug ururkan oo kamid ah ururada haweenka ee ka dhisan deegaanada galmudug ayaa mas'uuliyiinta maamulka kala hadlayay sida ay wada shaqeyn dhab ah u yeelan lahaayeen ururka soo dhaweynta iyo hay'adaha kale ee maamulka ururka soo dhaweynta ayaa ballan qaaday inay ka qayb qaadan doonaan sugidda amniga wacyigelinta isdhexgalka bulshada horumarinta deegaanka iyo dhammaan hawlaha kale ee waxtarka u ah bulshada waxaan diyaar u nahay in aan la shaqeyno wasiirada in aan la shaqeyno xildhibaanada in aan la shaqeyno degmada gudoomiyaha iyo ku-xigeenkiisa ciidamada oo la dhowrno amniga oo la qabano wax muuqda adinkana waa rajaynaynaa in aan ugu tixgelisiin marka inaan isbarano aan isku nimaano aan iswarsano annaga dareynayna idinkuna martaqaadna halkan haddee waxaan ka rajaynaynaa amni hadday tahay haddii madaxda kale ay tahay wada shaqeyn wanaagsan iyo isbarasho wanaagsan gudoomiyaha degmada Cadaado Cabdullaahi Cabdiraxmaan Tootoole oo kulanka ka qayb galay ayaa ururka soo dhaweynta galmudug uga mahad celiyay shaqooyinka uu qabtay waxaan ognahay haweenku inay laf dhabarka meesha yihiin wax kasta oo dalka ka socdaan looga maarto haday dhaqaale tahay haday abaabul tahay haday xoog tahay wax kasta looga maarto wax weyn ka galaan marka waxaan leenahay waa xoog cusub iyo dhig cusub oo dib isku soo abaabulay oo hore u jiray marka waa boqolkiiba anaga soo dhaweynaa barnaamijkan wasiir dowlaha arrimaha gudaha galmudug Cumar Guureeye oo kamid ahaa wasiiradii ka qayb galay kulankaas ayaa ururka soo dhaweynta galmudug ku tilmaamay urur muhiim u ah maamulka galmudug isagoo si gaar ah ugu amaanay kaalinta ay mar kasta ka qaataan kor u qaadista bilicda iyo nabadda deegaanka amniga waxaanu xasuusanahay deegaankan waxa la fadhabar u ahaa hooyooyin sababtoo ayaga maalin walba ciidamada waxay ku soo wargelin jireen ciidanku inuu xog helo xog ku shaqeeyo xogtana inta ugu badan waxaanu ka heli jirnay gabdhaha oo la socotaan hadda ka hor intaas oo mishin oo deegaamadaana dhammaan intii fashilisay oo xogta laga helay kulli gabdhaha ama hooyooyin anigu aad baan u aqaanaa wax qabadka iyo qiimaha ay ku fadhiyaan iyo xoogga ay leeyihiin ururka haweenka Cabdi Xasan Awowe warbaahinta qaranka Soomaaliyeed Cadaado.